Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal dadweynaha reer Jabuuti iyo Soomaalida Geeska Afrika ku nool iyo dhammaan dadka reer Ethiopia waxa aan xaggan aan ka macnayni doonaa webiga Ethiopia ee Hawaash. Webigaasi iyo taariikhdiisa iyo marxaladda uu ku hayo dalka Jamhuuriyadda Jabuuti saameynta uu uu ku lahaa dalka Jamhuuriyadda Jabuuti iyo sida xamashadu ay u go'doomisay biyihii Jabuuti imanayay ay u goysay iyaan ka faallooni doonaa. Walaalayaal waxaad baraha bulshada ku aragtaan oo sanado badan ay ka qayliyeysaa dowladda Masaaridu webiga Nile biyo xidheenka Ethiopia ay ka samaysay xuduudda Ethiopia dabadeedna biyaha ay ku joojinayso koronto uga dhalinayso iyo qaylada ka soo yeedhaysa Masaarida ee dagaal baan qaadi waa dhuunigaygii haddii biyahaasi la joojiyo dagaal baan ka naqaanaa bay yiraahdeen Masaaridu. Haddaba arrintaasi arrin la mid ah dalka Jamhuuriyadda Jabuuti bay ku dhacday muddo haatan laga joogo 50 sannadood. 50 sannadood ka badan ilaa waxaan u malaynayaa 58 sannadood in gaaraysa iyo dalka Jamhuuriyadda Jabuuti ay ku dhacday marxaladda maanta Masaaridu ay ka qayliyeyso. Walaalayaal waxaad ogsoontihiin webiga Hawaash wuxuu ka bilaabmaa buuraha Highlandka ee Addis Ababa agteeda ayuu ka bilaabmaa ilaa Nazareed buu soo maraa ilaa dhulka Canfarta iyo Ciisaha buu soo maraa dabadeedna xuduudda wuxuu ka soo galaa xaggaasi ilaa xuduudda Jabuuti. Marka waxaa jira gal weyn oo xagga ku yaro Lake Appy la yiraahdo. Lake Appy-daasi waxa wadaaga Jabuuti iyo Ethiopia. waa gal weyn oo dhinacna Ethiopia ay ka wadaagto dhinacna Jabuuti ay ka wadaagto. Haddaba Ethiopia waxay ka dhistay xaggaasi biyo xidheenka korontada dhaliya iyo xagga ka dhistay. waxaa la yiraahdaa biyo xidheenkaasi the Hawaash Dam baa la yiraahdaa waxaana la dhisay oo dhismihiisu bilaabmay 1955 5 sannadood baa la dhisayay si xagga koronto looga dhaliyo Addis Ababa u shida Diridhaba u shida iyo dhammaan Ethiopia inteeda kale. waagaasi la dhisay biyo xidheenkaasi Ethiopia waxay ahayd 35 milyan. waxaan ka hadlaynaa 1955 ilaa 1960 Ethiopia population-keegu markaas wuxuu ahaa lagu qiyaasayaa ilaa 35 milyan. markaasi way ku filneed magaalada Diridhaba ay ku nooleed meelaha 300,000 iyo magaalada Addis Ababa ay ku nooleed ilaa dad gaaraya 2 milyan iyo badh. inteeda kalena baadiyaheega iyo Ethiopia inteeda kale marka la eegana ay ku noolaayeen dad gaaraya ilaa 25 milyan. markaasi korontadaasi waagaa la dhisay 1960kii faraha laga qaaday waa maamulkii Hayle Salaase. waxay xagga Hawaash ay ka sameeyeen biyo xidheen. marka biyihii ka imanayay buurahaasi oo dhan ee webiga Hawaash xaggaasaa lagu qabtay. xagga markaa lagu qabtay biyo xidheen weyn baa laga sameeyey. marka area-dani waxay noqotay biyo yaroo waxaa soo gala markuu daamku buuxsamo amba biyo xidheenkaasi buuxsamo la sii daayo dabadeedna dadkani beelaha yaryar beeray ka samaysteen oo sanadkii dhowr jeer loo sii daayo biyo xidheenkaasi. waa area-dan waxaa dega
ciisaha iyo canfarta ayaa dega oo waxaa la yidhaahdaa waa dhulka iminka dagaaladu ka socdaan ee maaragtay maramka ku jira. markaasi walaalayaal haddaba maxay saameyn ku yeelatay Jabuuti? waxaa jiri jirtay walaalayaal biyahaasi awaash ka imanaya lag abi way soo dhaafi jireen ilamaa dakhil bay soo gaari jireen. dadka reer dakhil way xasuusanayaan dix baa dhex marta magaalada dakhil. biyahaasi dixda had iyo jeer gu iyo jilaalba way socon jireen, way soo dhaafi jireen biyahaasi ilaa baadho yar ilaa baadho weyn bay soo gaari jireen. dabadeedna xaggaa waxay kaga dhici jireen dixda la yiraahdo korcangaar dixda la yiraahdo cambaado ayay xaggaa kaga dhacaysay ee carto hoosteeda, xaggaasayna badda ka galaysay. biyahaasi biyo xoog u socda ma ahayn, laakiin biyo laga faa'iidaysan karo wax laga beeran karaya bay ahaanayeen. oo marka ay galkan weyn ee lag abe leegan ay soo dhaafaan, biyo yaroo dee dadka qaadayana ma ahayn, biyo maaragtay xoog u socda oo xowli badanna ma ahayn. biyo laakiinse waxay ahaayeen si yaroo maaragtay u socda xoog aan ahayn, xawli badan aan u socon, laakiin maaragtay dadka beeralaydu wax ka beeran lahayd. oo biyahaasi dakhil bay soo dhex maraan, waxayna soo dhex mari jireen ilaa maaragtay baadho yar ilaa baadho weyn. dabadeedna waxa ay inteeda badan biyahaasi waxay ku baahi jireen baadho weyn bay ku baahi jireen. dabadeedna waxa ay kaga meel carto agteeda iyo kaga weecanayso xaggaa badda kaga dhacayeen ilaa maaragtay cambaado meel la yiraahdo. markaasi go-doonka waad maqashaan waqtigan iminka masar waanu ka dagaalamaynaa biyaha niilka haddii dowladda Ethiopia ay qabato ay leedahay. bal dadka intani ku nool ee hadday noqoto ciisaha iyo canfarta kililka shanaad ee Soomaalida, qaarna ay yihiin kililka canfarta, qaarna yihiin Jabuuti, iyo haraad u dhimanaya, haraad oo biyo la-aan u dhimanaya. biyo xireenka weyn ee la sameeyey waagaa Hayle Selassie uu sameeyey 1960kii faraha laga qaadayna the Awash Dam baa leeyahay, xaggaa buu ku yaalaa. marka dalka jamhuuriyadda Jabuuti markaasi kama hadli karayno isticmaar bay ku jirtay. faransiiskuna maba danaynayn biyaha xaggaa soo maraya, dakhil soo dhex maraya, baadho weyn soo maraya, xagga cambaado kaga dhacaya. biyuhu waxaa jira markay xoog leeyihiinna dushay socdaan, marka ay xoog lahaynna dhulka hoostiisay socdaan. oo haddii aad faqdid in suxulka in leeg haddaad faqdid waad gaadhaa. marka biyihii xaggaas markaa lagu joojiyey iyaa waxa weeyaan dixdii xaggan webigii Awaash waxa uu noqday biyo yar oo yaroo de maaragtay aanan ku filnayn intan oo dhan. dhulka maaragtay ciisaha iyo canfartu ay degaan oo dhan iyaa laga qabtay. dabadeedna xuduudda Jabuuti markay soo galaysayna, biyihii soo dhaafayay xuduudda Jabuuti soo galayay ilaa badda ku dhacayana waxaa la qabtay 1960kii goorey Jabuuti gumaysi ay ku jirto. markaasi de hadal uma baahnayn Jabuuti, uma banaanayn markaa dalka jamhuuriyadda Jabuuti. markaasi waanu maqalnaa hadh iyo habeen in dowladda Masar ay tiraahdo dagaal baan ka aqaanaa, waa noloshayadii haddii biyo xireenkaasi biyaha la buuxiyo oo Etoobiyaanku biyahaasi ay qabtaan, waa noloshayadii bay yidhaahdeen. dagaal baan ka naqaanaa bay yidhaahdeen. laakiinse waqtigaasi inaku iska daa webigane dalka idila jamhuuriyadda Jabuuti bay rabeenba in Ethiopia lagu daro. Hayle Selassie wuxuu rabay dalka idila jamhuuriyadda Jabuuti in Ethiopia lagu daro. waxaan maaragtay iskaba soo dhaaf maaragtay biyo xuduudda soo dhaafa
oo dalka jabuuti soo gala. marka Ethiopiaanku waxay dhiseen webiga Hawaash. webiga Hawaash waxa uu maaragtay capacity-giisu waqtigaa markii la joogay 1960kii markii la joogay Ethiopia ay ahayd 35 milyan. capacity way u haysteen inuu Ethiopia uu maaragtay oo xagga korontada uu ka caawiyo, oo korontada benziilka ku socota iyo gaaswaalka ku socota ay kaga maaragtay kaga badbaadaan. marka caasimadaha waaweyn ee sida maaragtay Addis Ababa iyo Nazareth iyo Diridhaba iyo magaalooyinka waaweyn ee maaragtay Ethiopia ku yaala webigan baa shidaayay. ilaa ma hejada yaryar oo maaragtay 9 kilil ee ku yaala dalka Ethiopia. maanta iyagu taa way ka kaftameen, waxay iibiyaan bay rabaan. marka biyo xidheenka ay maanta ay ka sameynayaan gobolkaasi westiga ku yaala Ethiopia ee xuduudda kala leh Suudaan, ee dowladda Suudaanna ay diidan tahay, ee dowladda Masaariduna ay dagaal baan ka naqaana ay leedahay. walaalayaal, waa wax innakayna qabsaday 1960kii. biyahaasi munaafacaadka ay tari lahaayeen inta u dhaxaysa gobolka Dakhil ilaa Baadho Yar ilaa Baadho Weyn, waayadii hore waxay ahaayeen baa layidhi dhul geelu daaqo, dhul kaynac bay ahaanayeen, dhul maaragtay gu iyo jilaal durdurku socdo bay ahaayeen, dhul waxay ahaayeen maaragtay inkastoo dadkeenu dad reer guuraa yahay oo beeraha aqoonin, haddana dhir minallaahi yaa iska baxaysay, caws baa iska baxayay, xooluhu maaragtay abaar kuma dhulka. iminka markaad Jabuuti aad ka soo baxdid ee Dakhil ku socotid ilaa ma Qallaafi aad ku socotid, abaarta ee engega dhulkaasi waxay ahaayeen dhul maaragtay qoyan kayn leh, waayo dixdaa baa waraabin jirtay. meeshan leg ape baa biyuhu soo dhaafi jireen. biyahaasi xoog bay lahaayeen ee xaggaa ku soo dhaafaan, laakiin markii xaggaa laga dhisay biyo xidheen, biyihiibaa tamartoodiibaa yaraatay. biyo yaryaroo maaragtay miyir u socda bay noqdeen, oonan ku filnaynba dhulkan maaragtay kililka shanaad. dhulkan waa dhulka Cadayti iyo Garbaciise iyo Candhufa iyo Gawaani ilaa maaragtay eriyadaasi weeyaan. intaas iminka waa adiga arkaya biyo la-aan baa loo dhimanaya. intaasaan kusoo koobayaa. marka dowladda Masar waan u garaabayaa, waayo nolol baa ku xidhan bay iyagu ku leeyihiin. iyagu teknolojiyad iyo wax la iibinayo iyo koronto iyo maaha, iyagu waxay ku leeyihiin quutal daruurigii baa ku xidhan bay yidhaahdeen. marka dadka Masaaridu waa dad beeraleya. haddii maaragtay dadka Soomaalida ciisaha iyo canfarta dhulka ku nooli ay dad beeraley ahaan lahaayeen, dee Hawaash maaragtay webigan eeg dhinacan xaggan ka soo xigta waa dhulka Oromadu degto, Adama dhulka la yiraahdo. Adama waxa weeyaan waa Nazareth weeyaan, oo magaca laga bedelay Adama baa iminka la yiraahdaa. dhulkaasi webigu Hawaash saan buu biyuhu iskaga socdaan, oo dee waxa weeyaan waa dhulku ka soo bilaabmay. markuu soo gaadho dhulkii maaragtay Soomaalida iyo canfartu ay degaysay ayaa laga dhisay biyo xidheen 1960kii. markaasi waxaana dhacday dadka intan dega inay biyo la-aan ku dhacdo. dalkii Jamhuuriyadda Jabuuti biyihii soo gaarayena ay biyo la-aan ku dhacdo. marka dalka Masar waan u garaabaynaa haddii yiraahdeen maaragtay nolosheeda ku xidhan quutal daruurigeygii weeyaan. haddii ay dad idiloo 110 milyana ay ku leeyihiin maaragtay annaka nolosheeda ku xidhan, waan dhimanaynaba haddii aan maaragtay webigaasi u guro oo biyo la-aan dhacdo. innagu waxaan ku badbaadnay dad reer guuraayaan nahay, dad beeraley haddaan ahaan lahayn
dhulkani wuxuu noqon lahaa maaragtay dhul beeraley uu ahaan lahaa. marka walaalayaal intaasaan kusoo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.